هاي walaalayaal waan idin salaamnay waxaan ku salaameynaa magaca rabbigeena iyo badbaadiyeena Ciise Masiix soo dhawaada oo ku soo dhawaada jidka jannada waa anigoo ah Shaani Gaabo iyo ninkeyga Shiina Gaabo soo dhawaad Shiino mahadsan Shaani rabbiga ku barakeeyo walaalahena qaaliga ah maanta waxaan idin wadnaa barnaamij wanaagsan ama mowduuc aad u fiican oo ah magaciisuna yahay Ciise waa wiilka Ilaah taasan ka hadleena waan rumaysadkeena sida anaga u rumaysanahay Ciise Masiix inuu yahay wiilka Ilaah ayaan ka hadleena ka hor laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan idin mahad celiyo dhamaantiinba intana daawata oo asxaabteena ah saan la socotaan iyo maarta xiriirka wanaagsan leedihiin waa mahadsantiin rabbi ha idin barakeeyo waxaan ka codsanaynaa inaad share gareysaan videogan soo socdo waxaan kaloo idin ka codsanaynaa inaad subscribe ku sameysaan YouTube-keena oo la yiraahdo jidka jannada iyo mid kale oo aan leenahay oo magaciisa la yiraahdo Shiina iyo Shaani Gaabo marka waa mahadsantihiin waan nagala socon kartaan baraha bulshada Facebook-yadeena jidka jannada iyo Facebook-yada anaga aan leenahay oo Shaani Gaabo iyo Shiina Gaabo aad baa u mahadsantiin walaalahena qaaliga sida mar walba nala socotaan rabbigana ha idin barakeeyo waan u duceynayaa kadibna casharkeena aan u guda galeena aan duceysano Abu Qudus wada mahad maanta iska leen kaaga mahad celinayna waqtigan wanaagsan rabbiyow waxaan ka baryeena ina na adeegsatid afkeena iyo qalbiyadeena rabbiyo ha ahaadaan wax adiga aragti kuwii ku hadla waxaan ka baryeena rabbiyo in rabitaankeena iyo ahaan kaaga ha ahaato rabbiyo wax meeshan ka dhacayo dhanba waxaan ka baryeena dadkana dhageysanay qalbiyadooda inaad taabatid in dhagahooda inaad furtid si ay u gartaan runtaada ikan adiga aad tahay rabbiyo warka wanaagsan maqashay rabbiyo walaalahena intaas waxaan ku baraa magaca rabbigeena iyo badbaadiyeena Ciise Masiix aamin 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 haleluya rabbiga ayaa mahad iska leh walaalayaal عشركن وعشر أدو قرح بدن عيسى مسيح وويلك إله مركز دتك مقلان إسلام مركب وحلسو بودان وادن بودان وحوم لا إنا كهد لينو سيدي أبو يمحيت عنقيس ودلايو كله سيدي شركة لسكجر دلايو كله ما هو أبو المسك دلايو كله سأنا قول هينو إله ناقبو أروس عمل المقدلة وحاسنكم هذا لنا أنا ساسنو ما منسل مركز ده مركز لنا عيسى مسيح وويلك إلهي maxaa laga wadaa waa inaan tirahdaan weydiisan taas maanta falanqeynina oo uga hadlayno sida uu kitaabka quduuska ka yiri iyo dhalitaanka uu Ciise Masiix uu yahay wiilka Ilaahay sababtu ku yahay Ciise Masiix wiilka Ilaahay iyo anaga dhan aan ku noqonayno carruurta Ilaahay aan ku noqonayno ayaa idin fahansiinayna maanta arintaas ka hadlayno markaan ka hadlayno oo aan leenahay wiilka Ilaah kagama hadlayna xagga jirka ibni aadanimada iyo waxyaabaha dunida kagama hadlayna waxaan ka hadlaynaa waxa waaye magac bixinta iyo waxaan kaga hadlaynaa waxa waaye ma artay rumaysadka xaqiisa iyo xiriirka anaga iyo Ilaah aan leenahay iyo xiriirka wiilka iyo aabaha ka dhaxeeyo in si fiican loo fahmo ayaa meeshan macnaheedu uu yahay waayo bini aadan baan nahay bini aadankana waxay wax ku gartaan habka anaga aan isku la xiriirno iyo hab hadaleedkeena aan isku garanaa sidaas uu Ilaahna raba inuu wax noo fahamsiiyo wiil marka maqashid waxa xasuusanaysa aabe iyo hooyo meel buu ka imaaday wiilka imaashaha oo meeshu ka imaaday ayaa anaga marka waxa la leeyahay wiilkan aan ka hadlaynaa wuxuu ka imaaday xagga aabaha jannada Ilaah xagiisu ka imaaday oo anaga noo imaaday ma aha mid dunida ku aasmay ma aha oo ciida ka imaaday oo ciida u noqday ma aha waa mid samada ka imaaday samadana dib ugu noqday si aayadaha badankood ay sheegayaan marka waa abtirsiimaha uu asaga abtirsanaayo xagga ruuxada meeshu ka imaaday waa xagga Ilaah ayuu ka imaaday marka aniga bini aadan aan nahay aniga aabay hooyada aan ka imid ayagana waxay ka imaadeen aadan bay ka imaadeen ciidii ku yimaadeen ciidina u dalaabteen laakiin isaga wuxuu ahaa mid samada ka imaaday xagga Ilaah ka imaaday xagga samada ayuu u noqday marka abtirsigiisu waa sidaas sida qof walba oo dunida jooga oo magaciisa loogu yeerayo aniga si la yiraahdo Shiina Gaabo magac baa leeyahay oo aaban ku abtirsada marka abtirsigiisu uu socdo waa inuu asagana uu lahaada abtirsiyo maadaama jir bini aadan uu wato Ciise Masiix waa inuu lahaada meel ku abtirsado wuxuu ku abtirsanaya marka meeshu ka imaaday xaguu ka imaadana Ilaah xagiisa ayuu ka imaaday marka aabaha ayaa loogu abtiriyaa Ciise Masiix marka shaaniya anagoo si guda galayna aayadaha soo socda waxa waaye waxaan fiirinaynaa marka hore Ilaah sida kitaabka ugu dhaxadlay oo inoo sheegayo Ciise Masiix inuu wiilka Ilaah yahay meesha ka imaatay marka hore koo waxaan ka bilaabanaa Ilaah hadaladiisa waxaan ku xijinaynaa Ciise Masiix markuu dunida joogo aslaftigiisa sida uu u hadlay kadibna waxaan arkaynaa xirtii Ciise Masiix iyo sida uu hadleen iyo habka ay ku tilmaameen wiilka Ilaah iyo sida uu ku noqdaba shaani ayadaha ugu horeeyay iyo xaaladaha Ilaahay ereyadiis markaan dhahaynana macnaheedu waxay tahay Ilaah aabaha ah oo marqaat fura Ciise Masiix inuu wiilka Ilaah Ciise Masiix laftirkiisa oo dhahay anigu waxaan wiilka Ilaah xaguu ku yiri Ciise Masiix maalin walba la waa intuu seena iyo xirtii ugu yartay waxa taa wiilka Ilaah marka saddex waxaan haynaa marqaatiyaal oo cadeemo ah oo kitaabka quduuska anaga kitaabka quduuska ayaa aaminsanahay marka ugu horeyso waxa waaye aabaha Ilaah aabaha ah oo maxay sheegay inuu yahay wiilkiisa ayaanu noo akhrinayaa waxa waaye Matthew 3:16-17 waxa ku qoran Ciise goortii la baabtiisay ayuu markiiba biyaha kor uga soo baxay
kolkaasa samooyinkii furmeen oo wuxuu arkay ruuxa ilaah oo sida qooley oo kale usoo degaysa oo dushiisa imanaysa oo cod baa samooyinka ka lahaa kan waa wiilkayga aan jeclahay oo aan ku faraxsanahay bal eeg markii biyihii la dhexgeliyey uu kasoo dhex baxay isaga dembi ma lahayn biyaha anaga laakiin tusaale ahaan anaga wuxuu yiri gala isaga marka wuxuu leeyahay aniga igu dasta isaga sayidkeena isaga rabbigeena ah sidii marka waxa anaga sameeyeen in uu sameeyay waxyaalo ka sii fiican uu sameeyaa marka biyihii markuu galo kasoo baxay isaga ruuxii ilaahay ayaa wuxuu ugu soo degay sidii qooley oo kale korkiisa ku soo degay qooley ahaan ku imaaday astaan ahaan waa ruuxii ilaahay waxa laga wadaa ilaaha aabaha ah ilaaha ruuxa quduuska ah iyo ilaaha wiilka ah waa loo marqaati furay wiilkii ilaahay inuu yahay waxa loogu marqaati furay cirka ayaa ilaahay codkiisa kasoo yeersiyay wuxuu yiri kan waa wiilkayga aan jeclahay oo aan ku faraxsanahay muusan dhin kaliya kan waa wiilkayga kaliya laakiin wuxuu yiri kan waa wiilkayga aan jeclahay oo aan ku faraxsanahay markii ugu horeysa oo la maqlay inuu yahay wiilka ilaahay waa markii codkii ilaahay uu kasoo yeeray samada kasoo yeeray maxay xagga korka imaaday marka haddaana weydiinaysana anaga ciise masiix inuu yahay wiilka ilaah laftigiisa anaga aan aaminsanahay kitaabkeena noogu cad ayaan noo cadaynay noo sheegay waa sida anaga aan aaminsanahay inuu yahay wiilka ilaah ciise masiix mana aha wax jirka ka imaaday mana aha xagga bini'aadanimada sida kitaabka meel uu ku cadaynayo uu leeyahay waa wiilka ilaah marka la leeyahay ma aha doonista bini'aadanka iyo rabitaanka jirka iyo isku tagida bini'aadanka ma aha laakiin waxa waaye waa xagga ruuxada iyo xagga rumaysadka ayay sidaa ku ahaatay marka maxaa halkan ka cad marka shaaniya waxa ku cad cod weyn samooyinka inoo ka imaaday oo uu leeyahay kan waa wiilkayga aan jeclahay oo aan ku faraxsanahay marka intaan kaliya ku ekaanana shaaniya qof walba oo masiixi ah oo la baabtiisa markuu baabtiisa sida uu soo dhex baxo ilaah cod weyn ayuu kor kaga soo qeylnaa uu leeyahay kani waa wiilkayga tani waa gabadhayda aniga aan jeclahay oo aan ku faraxsanahay amiin qofkii sida u rumaysto masiixiga noqdo ayaa wuxuu noqonaa hadana caruurta ilaah kitaabkii ku qoran tahay waxa la yiri qof kasta masiixa rumaysto wuxuu noqonayaa caruurta ilaahay oo aan ka dhalan dadka xagga jirka ama xagga dhiigga ama bini'aadanimada laakiin ilaah xagiisu ka dhashay waa aayad uu haday sheegay marka waxa waaye ilaahay maadaama uu leeyahay qof kasta masiixa rumaysto wuxuu noqonayaa caruurta ilaahay ciise masiixna ilaahay aaba yiriba kan waa wiilkayga aan jeclahay oo aan ku faraxsan anaga marka aqbalana waxaan noqonayaa wiilkii gabdhaha adiga haddana dhageysanay haddaadan masiixi ahayn haddaad maanta aqbashay inuu ciise masiix yahay rabbigaaga iyo sayidkaaga iyo badbaadiyahaaga waxaa noqonaysaa gabadhii ilaah uu jeclaa waxaa noqonaysaa wiilkii ilaah uu jeclaa caruurta ilaah noqonaysaa shaaniya waxaan aad ugu faraxsanahay inaan noqday xerta ciise masiix waayo waagaygii hore waxaan isku tirin jiray inaan ahay addoon hadda se waxaan ahay wiilka ilaah adoonka ilaahay adoonka boqortooyada iyo boqorka uma iman karo laakiin wiilka boqorka wuu la joogaa boqortooyadana wuu ku dhex jiraa qof walbana sida asaga u rumaysto ayay u ahaanaysaa adoon waa wax liita oo maaragtay negative ah wiil ahaana boqorka wiilkiisana waa wax weyn oo ilaah uu kugu cazumayo inaad ka mid noqotid familkiisa iyo boqortooyadiisa marka kii walba ciise masiix rumaysta ereyga ilaah rumaysta wuxuu xaq u yeelnaa inuu noqdo caruurta ilaah baa absaas dhahayo sheena sax waay oo dhahayo hadda kadib adoomo ma tihiin oo dhaha adoonka waa kan rabbiga aaminsaneen banaanka fadhiya waa qof ku shaqeeyna amal banaanka joogo adoonka ilaah marka la kaas waay kan banaanka fadhiyo waay laakiin marka soo gashay gudaha oo ilaah isku dhiibto oo adeecdo ereygiisa qaadato masiix aqbashid oo masiix noqoto markaas aan noqonaysaa caruurta ilaah si ka hor ma noqonaysaa markaas kadib adoon ma tihid yes marka adoonnimada fiirinayno ma aha ma aragtay ma aha tan dunida ma aha iyo tan ma aragtay iyo waa tan rumaysadka marka haddii adoonnimo isku matasho adiga adoonka shaqa ayuu qabtaa oo uu qabtaa masarkiisa maxaa qof bini'aadan haddaa tahay ilaah maxaa u qabtaa adiga wax muu qabat ma u adeegtid wax uma samaysid waxba kuma kordhisid galoorigiisa ama ammaantiisa waxba kama naaquusin kartid waxba marka isaga wax walba kuu qabta waa inaad noqotaa marka sidii aabba iyo wiil yar oo aabbihii wiilka wax walba uu qabanayo waa dareenkaas tan lagu fahamsiinayo oo la rabo inaan anagana ilaah aan u nimaadno annagoo caruurtiisa oo kale ah oo aan nidhaahno aabbow marka aabbow aad tiraahdo waxaa imaanaya isku soo dhowaan aad u wanaagsan ay imaanaya laakiin aniga addoon ah markaad tiraahdo adigii aabbaha ama adigii boqorka aad baa u kala fogtihiin ilaah wuxuu rabaa marka xiriirkii inuu aad u soo dhawaado oo adiga iyo wiil iyo ilaah aabe iyo wiil oo kale ahaataan ama aabe iyo gabadhiisa oo kale ahaataan marka waa arrin aad u wanaagsan wiilka ku garta waxa la rabaa adiga inuu ilaah wiilka dhigto adiga inuu wuxuu rabaa ilaah gabar inuu ka dhigto adiga xiriir inuu kula yeesho toosan oo cidna u dhaxaynin oo aan kala fogeyn marka arrin wanaagsan waay walaalayaal ee garta
wiilka ilaah markaan leenahay kama wadno wiilka dunida kama wadno iyo jirka kama wadno waxaan ka wadnaa ka imaanaysaa waa xagga ruuxada iyo rumaysadka rumayso ereyga ilaah ciise waxaana noqonaysaa caruurta ilaah noqonaysaa صح dhageyna si fiican ugu fura masiixiinta ma aaminsan ilaahay inuu naag arooso ilmo ka dhalo waxaas waa qalad leedinka dhaadhiciyay annaga ma aaminsan laakiin annaga dhan oo masiixa aqbalnay ilaah wuxuu yiri waxaan noqotay caruurta waa sida boqortooyo ilmo yar ku keensatay ilmo yar hadda fiir annaga xitaa boqortooyo biskada aniga sheeno hadartaan ilmaha dhalnay waa kuwa dhalnay ilaahna si laakiin hadii maanta cunug noo keentaan oo idinka aad dhasheen ama walaalkay dhalaan saaxiibkay dhalaan dariskay dhalo korso ilmo yaris noo yimaado oo anaga aan korsano cunugaas hadhow waxa ugu yeeray wuxuu igu yeeray mama hooyo igu yeeray sheen wuxuu igu yeeray aabbo ugu yeeray anaga korsaneen jirka kama dhalan hadhow dadku markay dhahaan cunuga ma isku kidiina xitaa dhihi karaan adiga ma korsatay ilaan Yurub waxaan aragnaa dad oo cadaan ah madow ah korsan kartaa xitaa magta oo aabay hooyadiisa agoon ah soo qaadan kartaa marka korsatay cunuga aad ma dhashay marka lagu weydiiyo jir ahaan kama dhalin laakiin ana korsaday magaciiga lagu abtirnaa family gaabo ka mid noqonaa reer gaabo waa loogu yeeray familkeenu noqonaya laakiin anaga jirka kama dhalin waxaan ka dhalnay laakiin se korsiga waa sidaas oo kale waa ilaahay marka adeecno isku dhiibno waxaan noqon caruurta ilaahay mana ka dhalnay isku tagisna ma aha ilaahay naagama aroos ilmana kama dhalo cunugu sas u dhalayna ma jirto sida bini'aadamka isku dhalan marka fikradda qaladka walaalahay maskaxdeena ka tirtira aqbala kitaabka injiilka waxa ku qoran idinku mahadsan amiin mahadsan shaani waa sii soconaynaa aayado kale oo ma artay ciise masiix laftigiisa oo ereyga ilaah oo jir noqday oo dhex imaaday oo hadlaaya ayaa wuxuu leeyahay asan cadeynaa inuu yahay wiilka ilaah marka waxaan u aqrinaa Yuxana cutubka 10aad aayad 36 ilaa 38 ma waxaad ku leedihiin kii aabuhu quduus ka dhigay oo xagga dunida u soo diray waad caytamaysaa waad caytantaa waayo waxaan iri wiilka ilaah baan ahay صح haddaan sameeyo shuqulada aabahay haddaan sameeyno shuqulada aabahay ha rumaysanina laakiin haddaan sameeyay inkastoo aydan rumaysan shuqulada rumaysta inaad ogaataan oo garataan in aabuhu igu jiro ana aabaha aan ku jiro midnimo ayaa meeshaas ka muuqata aabaha iyo wiilka inay isku jiraan oo mid yihiin waa hadalka ilaah iyo ilaah sida isku jiraan marka halkan wuxuu ku leeyahay shaaniya ma waxa leedihiin ma waxa diidaysaan in aniga aan eri waxaan ahay wiilka ilaah aayadda 36 wiilka ilaah baan ahay markaan iri ma waxa leedin waa caytantay waad caytantaa bal fiir kalmadaas waa marka mar walba la dhawaacay waa caytantay bal asaa weydiinay dadkii dhahayo isaga afkiisa xagu ku yiri wiilka ilaah iri xagu ku yiri dadana weydiin waa kana hadda waa u jeedin annaga markaan wiilka ilaah waa ciise masiix ama ilmihi ilaahana waxa tiraan waa caytamaysan waa dambaabaysan ciise masiix laftiisa lagu yiri wuxuu leeyahay ma waxa leedahay waa caytamaysan haddaan iri wiilka ilaah baan ahay wiilka ilaah baan ahay buu leeyahay isaga afkiisa ka sheegayo oo dhahay waxaan wiilka ilaah amiin magacyo badan ayuu lahaa ciise masiix oo lagu yeeri jiray walaalayaal wiilka ilaah inuu yahay maanta aan xooga saarayna kaga sheekeynayna laakiin magacyadiisa hadaan xisaabino waxa weeyaan qiyaas ma lagu gaari karo runtii meel koobisan male waa boqorka boqorada ilaaha ilaahiyada amiirka nabadda kibista nolosha waa biyaha lagu haraad baxo magacyo badan uu leeyahay laakiin maanta waxaan xooga saarayna xagu ku yiri ilaahay wiilkiisa ah وين عدها إسقى بيري وحاي ويرك إله تنو إسقى عدي عايتنا معها وتايتل كيسة إسقى له سيدا ويهاي وويلك إله ويا مشوا كإمادة يكو أبتر سنة إله حجيسو كإمادة إله شغل دي سنة قبنايا أسقى إله نوامد ويا وأرجع إله إسقى ويجر نقدر نروح إمادة مركز سالير وويلك إله مركز ويلك إله وحوا يكو أبتر سنة عبها ويا حاجة سوك صباحي حاجة أيون الدب يقول عبتي ستاس أودد wiilka iyo aabuhu waa mid sida su'aalkan uu ku yiro uu leeyahay anigu aabahan ku jira aabuhuna anigu ugu jira marka eriga aabuhu ku dhex jira erigi baa soo baxay jir noqdona dhex maaday dunida imaaday intaasna waa mucjisada ilaahay dunida uu ku tusay inuu awoodo inuu sameyn karo wuxuu rabo inuu sameeyo jir binaadan ayuu soo qaatay uu dhex imaaday uu nala hadlay hadalkiisna sidan ayuu ahaa hadalkiisa miyaan rumaysanaa mise hadalka binaadanka rumaysanaa binaadanka hadalkiisa ma rumaysanayna waxaan rumaysanaynaa ereyga ilaahay hadalka ilaah baan rumaysanaynaa waa ilaah baa runlow ah dadka binaadanka been way sheegi karaan marka sida ku garta walaalayaal صح يوحنا 12:5-7 waxa ku qoran ciise ayaa ku yiri ciise masiix ayaa dadka wuxuu ku leeyahay anigu waxaan ahay sarkicidda iyo nolosha kii rumaysta in kasta oo dhinto wuu noolaan doonaa kii kasta oo nool ee rumaysta waligii ma dhiman doono waxaan rumaysan tahay waxay ku tiri gabadhii siido waan rumaysanahay inaad tahay masiixa oo ah wiilka ilaah
oo dunida imaan lahaa gabadhaas ku yiri gabadhaas ay wuxuu ku leeyahay waxa ay sarkicida yaa wax sarkicin karo shiin ilaah baa wax sarkicin aniga waxa u dhan nolosha yaa nolosha bixiyo ilaah baa bixiyo marka ciise wuxuu leeyahay aniga waxa ay ilaah baa ahay ilaahnimada ciise masiix xaggan uu ka sheegay inuu yahay nolosha wiilkii ilaah inuu yahay inuu sarkiciyo inuu maxay isaga kaligiis u bixin karo nolosha waligeed xaguu ka sheegay markay dhan xitaa ilaahnimadiis xaggan ku cadda ilaah ma ogi cid kale nolosha ma bixin kartaa ilaah cid ahayn wax ma sarkicin kartaa wax ma nooleyn kartaa wax ma xukumi kartaa maya taas wuxuu ku cadeeyay inuu ilaahnimadiis ku cadeeyay danteeda kale gabadha ay dhahayso waxa taa masiixa oo ah wiilkii ilaahay iyadana waa tasaa u marqaati waa arrinkan mawduucan wuxuu ku saabsan yahay waa gabadh waxay kamid tahay xirtii rabbiga kamid tahay dadkii la joogay oo ag joogay ayay kamid tahay markay wada hadleen wada hadalkii wuxuu ku dhameystirmay iyadii ma rumaysan tahay buu yiri markaas way tiri waa rumaysanahay inaad tahay wiilka ilaah aamin marka kitaabka way ku qoran tahay rabbiga ilaah aabahana wuu sheegay inuu ciise masiix yahay wiilka ilaah aslaftigiisna wuu sheegay inuu yahay wiilka ilaah xirtiina qayb kamid ah hadda halkan aan ku arkeyno gabadhan oo xirta kamid ahayd idana waxay tiri waan aaminsanahay inaad tahay wiilka ilaah waa sidaas sababta anigana aan u aaminay aan ku aaminayno kitaabkeena waxyaabaha ku qoran waa ciise masiix waa wiilka ilaah laakiin idinka marka u fasiraysaan literally sida erayada u yihiin u fasiraysaan waxa raadinaysaan waa dulduleelo waxa raadinaysaan hadallada jirka dunida iyo bini'aadanimada raadinaysaan laakiin taa anaga aan fiirnana way ka weyn tahay waxyaabaha dunida waxaan aad u fiirnana waxay tahay wax ka sii dambeeyo waxyaabaha ma artay qoran waa inaad ogaataa la rabaa ilaahna uu ku fahamsiiyo fahamkana aad qaadatid in ciise masiix uu yahay wiilka ilaah nool marka hadda isaga rumaystana waxay leeyahay nolosha daa'imka isaga bis baahay nolosha waligeed soo horeba u sheegay aniga ayaa ah yiri nolosha iyo sarkicida qofkii doona inuu sarakaco oo nolosha waligeed helo ciise masiix rumaysto walaalayaal si ay u sarakacdaan oo jannada u aadaan oo u badbaadaan naftiina u badbaado inuu yahay wiilkii ilaahay inuu yahay isaga sarakicida iyo nolosha waligeed marka waxa jirta marka la hadana xirtii uu imaaday ciise masiix wuxuu ku yiri idinkan yaa igu tilmaantaan wuxuu rabaa inuu weydiiyo dadkii uu ogaado waxa ay ugu yeerayaan dadku hadda u inkarayaan hadda marka la weydiiyo yaa waa ciise masiix qaar waxay leeyihiin waa nabi qaar waxay leeyihiin wuxuu yahay maba naqaanaba qaar baaba inkaraya Soomaali badan waxa arka dhahay ciise masiix maba naqaana muxuu yahay masiixul dijaal qaar u maleynayaan maba fahansanaba dadka maba garanayaan ciise markaan iyada markii ugu horeysay aabihii marqaati furay markii dambe isaga marqaati furay yiraani ma aytamin markii saddexaad gabar tiri kan hadda xirtu weydiinaa wuxuu leeyahay yaa igu tilmaanta marka ayadahan noo akhrinaya xirta markuu weydiinaya Mataayo 16 waxa ku qoran 15 aayada 15 iyo 17 waxa ku qoran markaas wuxuu ku yiri idinku yaad igu sheegtaan xirtiisu ku leeyahay Simon Petros ayaa ugu jawaabay oo wuxuu ku yiri waxa tahay masiixa oo ah wiilka ilaaha nool ciise markaas jawaabtu siiyay dhageysta ciise ayaa ugu jawaabay oo ku yiri waad barakadeysan tahay Simon inayonis waayo bini aadamtani kuma muujin laakiin aabahayga jannada ku jiro ayaa ku muujiyay marka waxa weeyaan walaalayaal hadda ayadaha anaga intaan dambe ma soo qaadanay oo qaybtan ku saabsan laakiin ka hor yaa igu sheegtaan marka waxay leeyihiin xirta wuxuu ku jawaabay dadka qaar waxay ku dhahaan Elijah qaar waxay ku dhahaan hebel oo dhimashada ka sarkacay qaarna nabi imaan lahaay ku maleen nabi ku maleen idinka yaa igu sheegtaan idinka yaa igu tiraadaan iga daa dadkaas kale hadda Soomaali badan waxay dhahaan nabi way qaar ma yaqaanaan dad maxay wax kale ku sheegayaan oo jirin idinka yaa igu sheegtaan ciise masiix hadda maanta da masiixita wuxuu ku leeyahay adiga yaa igu sheegtaa shiino yaa igu sheegtaa shaaniyo yaa igu sheegtaa waana dhahna waxa taa wiilka ilaaha nool wuxuu yiri qofka saasiir waa barakadeysan tahay aniga wuxuu yiri waxa ku muujiyay ruuxul quduuska ruuxda ilaahay ayaa ku muujisay adiga waa barakadeysan tahay wuu amaane ninkaas yani waxa waa arin cajiib ah kuwii la joogay xirtii baa sida tire asna wuxuu yiri waa barakeysan tahay marka waxa halka ku cadeynaya arinka inuu saxiix yahay marka walaalow dhageysanayo rumayso in ciise masiix uu yahay wiilka ilaah صح u barkood adigana xirtii markii uu sarakacay ka bacdi shaaniye qaar baa waxay yiraahdeen ma rumaysanayno qaar baa mid kamid ah markuu u yimid oo uu arkay inuu nool yahay oo sarakacay baa wuxuu yiri waan ku rumaystay ilaahayga rabbigayga wuxuu yiri waxaad igu rumaysatay inay aragtay laakiin waxa barakaysan ku aan arkin ee rumaysta inaan ahay wiilka ilaah marka anaga waxaan kamid nahay ku aan arkin laakiin hadana rumaystay in ciise masiix yahay wiilka ilaah barakadii ayaan sida ku qaadanaynaa marka adiga hadii aadan aqoonin ciise masiix
waxaan ku dhihi lahaa kitaabka quduuska soo qaado akhriso ama walaalaha masiixiinta la hadal si ay ku fahamsiiyaan marka ciise masiix waa wiilka ilaah xertiina way sheegtay asna wuu weydiiyo sida hadda adinka ana weydiinaysana oo uu weydiiya ay u tilmaantaan buu yiri annaga hadda idin soo gudbinayna idinka waxaan ku tilmaanay aan ku sheegaynaa in ciise masiix uu yahay wiilka ilaah nool صح markaas waxa noqonaysa kii barakeysnaa hadii ay sida ahaan lahayn shaaniye muxuu ciise masiix dhihi lahaa maxaa igu wuxuu dhihi lahaa ku xanaaq lahaa ama ku caroon lahaa muxuu dambaajin u dhihi lahaa ka noqo ka toobadkeena waxaa sheegteen meeqa badan maxay kitaabka quduuska waxaa ku jira meelo badan oo dadka xerta ka mid ahaa ciise masiix oo loo sujuuday ama magac kore loogu yeeray markaas wuxuu dhahaa waxay dhigi jireen ha ii sujuudin bini aadan adigoo kale ah maxay waxaan sameeyeen laakiin ciise masiix markii la caabuday muusan diidin markii wiilka ilaah loogu yeeray muusan diidin markii lagu dilaayay karooska wixii lagu geeyo lagu dilayna waxay ahayd inuu isaga wiilka ilaah iskugu yeeray oo ilaah iska dhigay ama ilaah iskala mid dhigay ayaa lagu dilay horta waxa sababta lagu dilay aan ogaano marka ugu horeysaba waa ilaahnimadiisa sababta lagu dilay kan dhimashada ka sarkacan ciise masiix oo marka hore garan la'aana sidoo sheena sheegay waa tuu yiri ilaahigay iyo rabbigayga ma uu dhihin wiilka ilaah kaliya marka wuxuu yiri ilaahigay iyo rabbigayga wuu ogaado qofku yahay rasmi ogaaday marka aayada kale way jiraan waa si soconeena waxaan ku dhex jirnaa xertii oo ciise masiix ku sheegaysa inuu yahay wiilka ilaah waxa dhacday marka inay maartay dooni fuulaan xertii ay dooni fuushay oo ay badda ay galeen badda intay ku socdeen waxa ku kacay hirir ku kacay baddiya marka ciriirisay oo maartay harqisay oo way dhibtoodeen way walwaleen markaas waxay arkeen ciise masiix oo biyi ku dul socda wuu u imaaday markuu u imaaday kadib ayuu badbaadiyay markuu badbaadiyay kadib ayaa hadalka ay hadlayaan ayaa in soo qaadeenaa sida ay ku cadeynayaan in ciise masiix uu yahay wiilka ilaah marka waxaan aqrinayaa Mataayo cutubka 14aad aayad 32 iyo 33 waxay leeyihiin oo markay doonida fuuleen dabeeshuna waa joogsatay kuwa doonida ku jirayna way caabudeen isaga oo waxay ku yiraahdeen runtii waxa tahay wiilka ilaah haleluuya marka ciise waa kuma ciise waa wiilka ilaah xerta dhana marqaad furays waa xer badan oo doonida wada saarneed oo markuu u imaaday kadib ay ku garteen waxyaabaha shuqlada asaga uu sameeyay wayna caabudeen hadda ogaada waxayna yiraahdeen runtii waa xaqiiq waa sida dhaar oo kale bini aadam Soomaaliyeed ay dhaarto runtii waxa tahay wiilka ilaah waa xaqiiqjin iyo maarta qirasho ay qirnaa ciise masiix wiilka ilaah anna sidaas u qirnayna runtii waa dhaarteena wixii run ah waa inaan dhahno run anna sidaas u qirnayna aan leenahay ciise masiix waa wiilka ilaah ciise masiix waxa tahay wiilka ilaah sax marka tani waxay ahayd in xertii hadana mar kale ay cadeeyeen dhowr mar oo kala duwan ay cadeynayaan markana markay arkeen in dabaysh canaanta dabayl ya aaminsan karo ilaah baa aaminsan karo awoodiisa ilaahnimadiisa markay arkeen dhaheen waxa tahay runtii waxa tahay wiilka ilaah taasay ku dhaheen mar kale jiro marka oo jinniida wasaqda leh iyagana ay sheegayaan magaca ciise masiix jinniyada wasaqda leh way ku baxaan jinni oo dhan iyo shaydaan wuu ku baxaa magaca ciise masiix baxda tira wuu baxaya kulma joogaayo qof masiixi lama joogaayo qofka masiixiga aaminsanna wuu ku bixin karaa magaca rabbiga jinniga kuma sii jiraa jinni wasaq oo la bixiyo qof laga bixiyo ayaa qiraaya hadana marka la dhahayo waxa taa wiilka ilaah aan aqrina marka ayadaas waxa ku qoran Marcos 3:11 oo jinniyada wasaqda leh goortay arkeen hortiisii ayay isku tuureen oo qeyliyeen oo waxay yiraahdeen adigu waxa tahay wiilka ilaahay jinniga wasaqda lahaa intuu ka soo baxay dadkii isku soo tuuray hortiisii isku soo tuuray ciise masiix ayuu wuxuu yiri adigu waxa tahay wiilka ilaahay meel qaar wuxuu leeyihiin hana silcinin baxna dheh bis baxleena dheh ayaan silcina dhaan way ka baqaan marka waxa weeyaan saas ay u qirteen kuwaasina oo waxay ahaayeen kuwii maaragtay wasaqda lahaa xitaa way qirteen marka Mataayo 27:54 mano aqrin kartaa wasi wadna waxa waaye wili hadda waxa aragteen qaybihii ugu horeeyay waa arkayseen waxa waaye aabaha oo qiray in ciise masiix wiilka ciise masiix laftigiisa oo sheegay inuu asiga yahay wiilka ilaah xertii qaybo ka mid ah kuwa ugu waaweynaa qaar ka mid ah Butros oo kale oo qirtay inuu yahay wiilka ilaah kuwii doonida saarnaa dhan ay wada qirteen inuu yahay wiilka ilaah xataa ay yiraahdeen runtii kan waa wiilka ilaah waxa taa wiilka ilaah haddana jinniyada ay qirnayaan inay yihiin inuu ciise masiix yahay wiilka ilaah marka tan way caddahay waan xaqiiqo in ciise masiix yahay wiilka ilaah marka walaalayaalow ma aha ma aragtay wax soo noqonayo ma noqonin inta dhageysata ama fiirsata videogan
aayadaha hadda aan soo qaadano waa aayado ku yaala kitaabka quduuska weligood way yaali doonaan ka aqriso taasaa ku cadaynayso in masiixiyiinta ay rumaysan yihiin wax dhab ah wiilka ilaahna habka laga wada sida loo wadana idin soo sheegnay ilaahna uu noo cadeynaa in ciise masiixu yahay wiilka ilaah marka haddaan aqriyo wiil waxaan ku dhex jirnaa kuwii rumaystay iyo kuwan rumaysaninba qaar badanaa waxaa jira marka dad yaqaana ciise masiix oo xataa rumaysta aan lahayn oo ayagana garan doona inuu asaga yahay ama qirnaayo inuu asaga yahay wiilka ilaah Matayos cutubka 27 aayadda 54 waxay leedahay boqol taliyihii iyo kuwa la jiray oo ciise dhowrayay goortay arkeen dhul gariirkii iyo wixii dhacay aad bay u baqeen oo waxay yiraahdeen runtii kan wuxuu ahaa wiilka ilaah waa goormee markaas goortii isku talaabada la saaray lagu qodbay oo ma artay wixii dhan ay dhaceen markii dhul gariirkii arkeen kuwana hadda waa ogaatan boqol taliyahan iyo asxaabtan kale waa dadkii Roomanka ahaa ee Ciise Masiix silciyay oo isku talaabada saaray iyo xirtii kale iyo kuwii kale oo aan rumaysanan isaga ayaa halkan waxay ku leeyihiin runtii wuxuu ahaa wiilka ilaah waayo markii naftiisaan uga baxday Ciise Masiix korooska uu ku dhiibay naftiisa uu yiri aabo maaragtay shaqalku waa dhameeyay iyagana yiri iyagoo qodbay uu yiri ka cafi aabo waxay sameynayaan ma yaqaanaan naftii saas uga dhacday cirkii dhulkii intuu madow noqday maalin ahayd 6 saac maalin amal ahayd intii qoraxdii madoobaatay dhulkii cirkii la kala garan waa habeen ay noqotay ayaa dhul gariirna imaaday markaas meesha dhan kala jajabtay markaas xitaa macbudka xitaa uu kala dumay oo maxay ahayd axdigii hore dhex yaalay kitaabka tawreedka uu dhex yaalay ayaa daah u dhaxay daah gadaashiisa qofna ma tagi karin maxay ahayd ka wadaadka sare bas un baa tagi jiray sanadka mar axdigii daahi ayaa kala jeexmay meesha dhan kala furmantay waxaa laga wadaa nimcada ilaah ayaa imaaday sharcigii oo dhan rabbigii dambigii oo dhan dushiisa ku qaaday markaasna qof kasta ilaah hortiisa ayuu tagi karaa isaga oo maaragtay masiixa ku daboolan oo huwan iftiinkiisa ku daboolan yahay markaas maalintaas markay arkeen waxay yiraahdeen waxa ahayd wiilka ilaah ayaa dhaheen marka Yohana 5:22 hadaan aqri waxa ku qoran aabuhu ninna ma xukumo laakiin xukunka oo dhan wuxuu siiyay wiilka oo dadka oo dhan wiilka maamusa siday aabuhu u maamusaan kii aan wiilka maamusin ma maamuso aabaha soo diray ilaahay ergiisu noo soo diray ergiisa hadaan dhulka ku tuurno anagi ilaahay baan dhulka ku tuurno amal waa ilaahay ma adeecin waa ilaahay ergiisa waan diidnay ciise masiix laakiin hadaan maamusno ilaaha maamusan xukunkana waxa bixinay ilaahay hadalkiisa wax walba ku xukuma sama wax walba soo kuma sameeyeen ha noqdeen soo marka hadda kana wuxuu ku sameeyay saas kale wuxuu ku sameeyay ciise masiix ayaa wax xukumi doon marka masiix aan aqbalno toobadkeena kuligin ciise masiixna aqbal aayad ugu dambaysa halkan ku soo qaadanayno waxa waaye kitaabka quduuska dhan wuxuu u qoran yahay injiilka wuxuu u qoran yahay inaan ogaano in ciise masiix uu yahay wiilka ilaah marka waan xaqiijin aayad ugu dambaysana waa gabagabada waxaan idin leenahay rumaysta in ciise masiix uu yahay wiilka ilaah waayo qoraalada dhan waxay cadeynayaan isaga inuu yahay wiilka ilaah Yohana cutubka 20 aayadda 30 ilaa 31 waxay leedahay haddaba waxa ciise ku sameeyay xirta hortooda calaamooyin kale oo badan oo aan ku qornayn kitaabkan laakiin waxyaalahan waxa loo qoray inaad rumaysataan in ciise yahay masiixa wiilka ilaah in aad nolosha ku lahaataan magaciisa idinkoo rumaysanaya marka rumaysadka iyo badbaadada waxay ku jirtaa inaad rumaystaan ciise masiix oo ah wiilka ilaah marka rumaysta badbaadana walaalayaal oo kale masiixa aqbala ogaada inuu yahay wiilka ilaah isaga kaliya inuu yahay badbaadada marka waa mahadsantihiin casharkeena intaas ku soo gabagabeynaynaa in ciise masiix uu yahay wiilka ilaah marka waa sidaas waxaan ka codsanaynaa haddana inaad share gareysaan videogan waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe ku samaysaan YouTube-keena jidka jannada iyo Shiina Ishaani Gaabo waxaan ka codsanaynaa nagala xiriirtaan mar walba baraha bulshada jidka jannada waa page-keena isagana marka waa mahadsantihiin waxaan Shaani ka codsanayaa inay duco noogu soo gabagabayso ربي إله وحن كوي معنا مجا سيد عيسى مسيح ربي وكاجا مهدينا عشر كي أمان تقاعدنا وحن كابرينا قف قست أول جست أما داود محي هذا الفيديو إذا إن محيت وفهم إن عديقة تهويل كي إله إن تجدك كلية وجنة لو تجا إن قف قست أقول مستين تهويل كي إله أو كتلا صارته إن جنة أقول بشارين ربي وحن كابرينا الصومالي ذا لما أنت إن بتبادس كل جود أكو أقص إن عديقة تهويل كلية إلهي محي تلو بتبادى جدك كلية حق الوعب إن عديقة تهبت بدبادي أمدين ربي وأنت سمحوا كويدي سننا مجا ربي جاني بدبادين عيسى مسيح آمين آمين نبدي كركين هات ولا نبدي دمانتين نبدي شلوم